كسر دوارة قيصر فلوجز. صاحبيال aad baan idin salaamay halkan maanta taaganahay wajiga waa meesha loo yaqaano Manaariyaga hadda waxaan ku sii soconaa Harta Sheekha insha Allah halkaas oo aan idin soo tawin doona farad aad u qurux badan aad baad ila socon doontaa saaxiibayaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بني دي سلامنا أصحاب تقاليقا channel كاد نقد داونا سوا كايسر فلوجز halkan aanu maanta joogna waa Harta Sheekha meel loo yaqaano inaad garanaysaa boo filaya anigu hadda xaqiisa ama Soomaaliland waa ka talaabay heradan joogo waxa la yiraahdaa Goojacade saaxiibayaal isla Harta Sheekha waxaan joognaa muddo kooban oo aan aadna u yarayn aadna u badnayn sidoo kale waxaan idin soo tagin doonaa muuqaal aad u badan maxaa la yiraahdaa saaxiibayaal hawsheedu ma yara هذا هالكم بونس كجاي ربنا يدونا إن شاء الله عبارك دي بانو كبيح دونا واللي بدور عشان تشوفنا هو لا يروس كيس يبانون مني مركب الموقع لا يريرو هذا مهم أنا ولدي كصوت دونا يمشي فلوكس كذا يو ما درك تحيا بنا عاصي معلومات هذا بدن هذا الله سعد صاحب يا صاحبي أستاذ جدا هكذا مع الله هم بيقطعي كده نقص عن دورنا إن شاء الله مقالدين ولي ما يدمعنا أو ولي وينصرنا أدبرنا نصعي دورنا ريا ستودنت يا عم هاي ستودنت السلام عليكم. عبد الرحمن السلام عليكم. يا انت نط غير كان فوق غير نتي مودير غير كان كوقير إن تقيمو دير تهي إن تقيمو دير تهي أدوغي نوغاليو وبحيقة تودي نفتكو قشور ديه إلى قيسو عشقها إلى قيسو عشقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليقا آد بان idin salaamay halkan aanu hadda joogno waa Harta Sheekha sidii caadiga ahayd muuqaaladeena iyo vlogyadeena caadiga ah baan idin soo tabin doonaa halkan naga daawanaysaa sidoo kale waa Kaysar Vlogs halkan ninkan yar baan kula kulnay oo dhalinyarada ah oo arday ah oo aan arkayo inuu yahay dhalinyarada meeshan ugu horumarsan sida ay qaar kamid ah nagu soo qaybiyeen naga muuqaalka ay yiraahdeen marka saaxiibayaal isagaan idin dhigi doona waa Jamaal Maxamed Yuusuf waxa kamid ah dhalinyarada magaalada gaar ahaan waqtigan intaan ku jiro waxa ka yimid dugsi sare marka waxaan horta u mahadnaqaynaa koobaadka dhalinyarada sida quruxda badan iyo dhageysanaysa ee waraysiga qaatay marka hore hadii aan ka hadlo horumarka deegaanka gaar ahaan magaalada Harta Sheekha marka maadaama ardahay waxaan ku bilaabi doonaa inuu imika horumarka magaalada fiicnaaday gaar ahaan dhinaca banka loo adeegsiga iyo meheradaha wax laga kala iibsanayo haddaan ku xigsiyo dhinacii muxuu ahaayay wadooyinkii oo aadinka iyadana loo sameeyay haddaan ku sii xigsiyo dhinacii waxbarashadii oo tayadeedii aad loo qaaday marka waxaan leenahay waxaas oo dhan alxamdulillah baan leenahay waxa loo mahadnaqaynaa waa ilaahay baa mahad iskale marka koobaad aad iyo Jamaal wax noo sheegtaa inta sanad halkan joogtaa ilaa yaraantaada inta waxaan ay iskuulka la koytanaad ilaa aad waan joogaa ilaa intaad dhigayso halkan aad ku barashada xagan waxbarashada ka bilaab ilaa yaraantaadii Jamaal xaafadeed ka gashay Harta Sheekha waxaan ka galaa gaar ahaan xaafadaha xasiilada ka gashay inta qabalay bay Harta Sheekha ka kooban waxay ka kooban tahay ilaa iyo dhowr qabalay ilaa afar qabalay
أفر قبلي كلا صونا وكلا فكفك وكلا فكفك حتى الشيخ مقال أهان أنت ليك بس أورنك في العيد والله أبو مرحاتي أي جهة على وجه أنا ما لقيت هاي بسوي بكوين هاي بس أنا وجه على وين نقول أنت أبو حقط يا سكرا قرب يحكم بإيه خيار نيو قبر بيحن وما كان تجي من عاير دين حاول يسيب الموضوع إلا قبل حكره لكن ما أدري ممكن قبل هان ويكسر رئيسان لكن قبل هان كسر لكن بعد هان حرتوي ما شاء الله شمالات بعض ما سيدو كلام كان والله لا سبسكرايب كرين دون تان دمانتينا aad baad noola socon doontaa anigu nin reer sheekh abaanay yaraantii baan kaga tagay saaxiibayaal hay moodinay inaan garanaysaa inaan halkan ka soo jeedin dadkeygii waan maanta helay aad baan idin salaamay saaxiibayaal haddii waxaan joognaa sariibada magaalada harta sheekh halkan waxaan kula kulannay gabadhan oo ah masha Allah gabadh si fiican u xamaalanaysa dumarkuna waxay fiican badan sariibadaha inay si fiican uga soo shaqeeyaan marka waxay nooga warrami doontaa halkan inta sanay joogto iyo maxaa la yiraahdaa sida hawshu ugu kala socoto iyo nidaamkeeda iyo dadkeedaba walaal magaca marka koowaad magacaygu walaal Khadra Axmed Nur Khadra Axmed Khadra Axmed halkan imsa sanaad joogtaa walaal 4 sanaad jooga 4 sanaad joogtaa 4 sanaad halka miiska yar baad fadhiisataa masha Allah laakiin halkan wiliga yani abi deganid reer saxan inta sanad deganid ka hor sariimada wax ma lagu soo kordhiyay aad iyo aad wallahi hay'ad wax badan waa laga bedelay marka yani dawladda isbedeshay baa keenta mar walba mise waa yani caadi ahaan bay isku bedeshaa mar walba isbedelka magaalada ayaa yimaada ma aragta dad magaalada ku soo kordhaya oo marba ku soo biiraya mise yani waa laga sii buuraya may dadka aad buu ximanaya weylada aad buu badan yahay soo degay magaalada aad ay badan yihiin aad buu wanaagsan tahay oo gartay insha Allah Khadra kulli war badan kasii qaadamayno muhiimadu waa inay halka sheekha joogto aad bayna idin salaamsan asxaabta ku xidhan channelka Kaysar Vlogs assalaamu alaykum alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga Sahra Maxamed baa la yiraahdaa Sahra Maxamed ay maamo imsa sanad halkan joogtaa in badan baad joogtaa ilaa imsa sano soddon sano way taadaan ka badnay soddon sano ma sha Allah aniga yar baan halkan iimin jiro naqan in laga yaabo inaan aniga laftirkeyga xasuusanay cid wax ka iibsan jiro waan gartay dee awbadkayga koriya jino magaalada soo shubay man garan lahay inka waxaan ka maqanahay 15 sano ayaa ka maqanahay ma sha Allah marka soddonka sanaba halkaas baad joogtay miiska hadee anta dhisnayna waan joogay halkan waxaad ii sheegtaa miisaska qof walba meel buu leeyahay marka nidaam dawladeed ahaan mise shakhsi ahaan nidaam dawladeed ahaan mise nidaam shakhsi ahaan nidaam shakhsi ahaan yaa macnaha la baanu nahayo islaan waliba miis bay ku xaadirto dawladuna siisay ay leedahay ma sha Allah miiskaas soddonkaas sanaba adiguna ka deganay walbana miis kana waxa weeyaan adhigii sii jeedana waxaan ku iibiyaa loodo labada miis baa taradariya maalintii miis bad marna xagaas marna xaga sidoo kale halkan hilibkana waa halka laga sameeyo sax dad gaaraba iyada hilibka sameeyo soo hilibka iyada dad gaaraba sameeyo hilibka anaga ma soo qalay shaqaalaanu leenoo noo soo qalaan halka dambana halkaan ugu gogooriyo kii muqmadii oo kale kii subaga lahaayo kale halka ka sameeynaya ku shaqeynaya ma sha Allah anaguna abaabulkii mas'uuliyadda ka soo yiminayay miisa ku yiminayay bariiska dharaanayska iyo maraqabada caruuraha bulshada siinaya baanu ma sha Allah maama Khadra waxaan rajeynayaa in dad badan channelkayga kala soo xiriir doonaan sidoo kale ay hilibkaaga soo dalban doonaan insha Allah rajeynayaa inaad lambarkaaga u sheegto ku tiraahdo lambarkaaga igala soo xiriira u sheeg lambarkaaga u sheeg dawladna dadka kula soo xiriiraan debel way lambarkayga waa kareeyo aniga uu yeedhinay sida laakiin loo soo saaro ma garanayo lambarka soo jamaal yaro soo saar aniga iyo maamadaas imika isku mid baanu nahay sababtoo ma garanayaa sida lambarka loo soo saaro balaay ma joogto way noo yimid waxay dhahdeen waxaan dooraynaa inaan waraysi la yeero dadka u diro oo calashaan hadda sheekha hilibkeega iyo macnaheed 96 lambarka maama Sahra Maxamed ama Sahra Maxamed numbarkeedu waa ninkii hilib u baahan insha Allah wala soo xiriiri doona oo dhamaantii waxaad u baahan tihiin inaad halka la idinku keeno insha Allah wixii caawina anaguna wada ka caawin doona saaxiibayaal arigan qalaa loodan qalaa labadaba waa qalaa ilaaha la baryaa
بريدنا وحق الله إلهي وعنا كلا سيارت صح السلام عليكم عليكم السلام وعو بدل والبوا دونينا ما شاء الله وعو دنت وشافك الحمد لله رب العالمين مش كاير بد حقوق بتشغل دنت نورت قلبك لا يقليو اي وعو بوعف ما دي نسيو آخر يدون بسامح صاحبيال وكان هيلبكي ما مسهريين ka hor inoo sheegisay halkan laga soo diraa marka halkan saarayay waxa la yiraahdaa uu leersanayaa baa la yiraahdaa hadii wax lagu rido yani wuxuu noqonayaa sida meedka marka meesha la dhigo marka imika sidan waxay ka dhigan tahay uu leersanayaa kadib markuu leersado maalmeer halkan yaala ama wandhay kadib baa la karinayaa ama la shiilayaa dadna markaas la soo dirayaa marka kan iyo kan inay kala duwan yihiin baan filayaa yaa bal anigu kulli fahmi waayay maamadan baa idin sheegi doontaa inta wixii dhaafay mama inta ugu kala duwan yahay ugu kala duwan yahay labadani hilibku wuxuu ku kala duwan yahay dawaa loo kan waa maxay muqmad baa laga dhigaa loo weeyaan kan waa loo marka waa la shiilayaa in muqmad baa laga dhigayaa in subag baa lagu tarayaa geel baa waa loo labaduba waa loo marka waa la kala jabinayaa mid muqmad baa laga dhigayaa subag codka lagu daraa midna shiil baa laga dhigayaa isaga la isku celiyaa waa caynka ما شاء الله ما شاء الله ما بعد ما سنتاي مقعاقة لكن ما تشيقي مقعاقة سهرة قيلة وينها اللي يدين سهرة قيلة وينها سهرة إيه سهرة لابد سهرة وين نورة عشان بابينا صاحب عيال عبار هالكم بايرة فدية سامبسام بالمعمد اللي يبني أنا بو معمد وحلقة يا بقولي بيني سافر يستحي أسحاق الصباح بي أفرتي صباح نموكا ماما مقعاقة فتية محمود فتية محمود ماما يمس السنة هالكن شوكتا 5 سنة هالكن ماما شوكتا 5 سنة هالكن بعد إيه دقني أنا كشقينا أنا قلنا لي 5 سنة ما لها سوي جالس أنت هاس في مكان هاي أنا قلنا يربط كتير هاي والمكان هاي مركز 5 سنة هالكن يسك برتين يربط هالكن ما فريستي سامبسام كتبه ما شاء الله أنت أصلا كشقيا ما شاء الله عرضان كبيريا ما شاء الله وإن شاء الله يقصوا سعرهم كقاطها صح الحمد لله رب العالمين لا الله واسع يا ماما رمضان وماما كمية ماموينك سليمة أرجع ودقيقين ميلها بحافظ كتلا halka yar tabduuye لكن وسيلة دو ها وسيلة دو ماما ده نادي مسؤولينا إن شاء الله وري عليه يسمى مسان قات عليه قاتستي عليه دي جمالك عليه سواك حيو عليه ده أنا بحني عليه أردنا عسني ذي جدا يك عليا ما أنت تقولون بدي لسه عتني لما أنتين عليا ذي واحد محل يقبل وارتمل بعد أن نقول له داي لما نروح خشلا يعني يا ما يمن غير شيء يقول ذي بعد أن نقول له بعد مسوي أنت يبغى كيف يجدوا حبيت واتبر يا رنا حبيت واتبر يا طبعا أثري ياهو صدق أفر شن ليه وطبعا سجال طبعا أيه وقولي فتح ريال سوما سحوية أوكي الله المستعان وقولي أفتح ريال ما هو أنت سوي مسا بقر ريال ريال سوما سك الله المستعان أنت سنوي مسا أنت نصطن بلغا قومي باقي هو اللي بيقول ما هي علم ما هي علم ماما باقي مرة ماما هويا سلام عليكم السلام الله عليك صاحب عيال ماما وتسكتي ساسو ما هي مكان شغلات وين كوره ما انا شغلتي وين ما تمام السلام الله عليك السلام عليكم اي صاحب عيال ساسي شغلتي inaga inoogu dhantahay muuqaalada siriimada insha Allah wuu iska tagi doonaa suuqeena kaleenu dib ugu laaban doonaa assalaamu alaykum aad baad ma santiin maamo صاحب عيال halkanina waa meel kamid ah qaybaha siriimada u dhow ama area-da siriimada ka dhow sidoo kale halkan waxa lagu iibinayaa alaabtan magaceeda wada garanaysan waxa loo yaqaan xeero sidoo kale waxaan weydiin doonaa maamadan magaceeda iyo sidoo kale nidaamka alaabtan iibinayso inay la kireynayo in kale maama salaamu calaykum alaykum salaam magaceeda
حاجة فادني في عبد الله ولا لا عبد الله علاقته واد كريسة بسود إيبسا هو يوان واد إيبسا أنا بكرين لك ولا halkeena laguma kireeyo kaliya waa la iibiyaa dumar baa keena dumarkaasaan ku siibsanaa ayaad ku siibsan idinkuna waad siibsan ما شاء الله وألعابتي سوما هل وحدي حيرونكي ويا يوحي لقول حكوري يوحي ألعابتي السورية دي مركينا تلاقيها قرصدو أدرعين السوية ما شاء الله فرنسية يلا لقول شرفتينا سويا هذه مركا صاحب يال أحد من دوكان ألعابتي نوصوا تاس إذن كسي ورما يمسي سنة ما هل كان فرنتك هل كان مرا لا dhowr sano toonay sano meelaha ku toonay sano ayaa meelahaas ku iibisay insha Allah saaxiibayaal wada socon doontaan 10 sano imaamadan halka ku iibisa maxaad igu tiri magacaaga Faadimo Bede aniga ka ciyaaray sorry Faadimo Bede halkan alaabtan bay ku iibisa insha Allah cidii u baahan wada soo xiriiri doontaan halkan lambarkeeda idin ku reebsa u sheeg maamul lambarkaas baad kala soo xiriiri doontaan haddii Ilaahay raxdo cidii u baahan alaabtan wada soo xiriiri doontaan kaleeyna wadin reer hadiisanahay alaabtan aad baan u soo dalbanaa waan ogahay wala kireeyo hargeysa wada soo xiriiri doontaan saaxiibayaal iyadoo iiba soo leedahay kireeyo iyadoo iiba baad halkan ka qaadan doontaan wassalaamu alaykum